waxaad dareemaysaa shan walaalo ah oo runtii wax muxuu ahaa ganacsi ku jiray xisaab xir ku jiray dalka aan ka tahriibin dambi aan geysanin wax dhiba aan samaynin in ayagoo xisaab xir ku jira haddana la isku qanciyo waxaan la iimeynaynaa walaalahii muqdisho dhibaatada ku dhacday dhibkayga maanta inuu wada gaaray maanta jirkayga haddii la qalo wallaahi ay kasoo bixi weyso oohin baa kasoo baxaysa ragga waxaan ku eedeeyayaa dumarku ma awoodaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi kristaanati hadday wada beenaysan awoodin inay qanxaan malayka kristaanati soomaalinigiisa fikirayskadaa miyaynu gamaynaa miyaynu gaaraa miyaynu oynaa maxaynu kaga qayb qaadan karnaa dareenka muqdisho ka dhacay waa in aynu garab istaagnaa oo wiiliyahoo siinaa oo dhiiggeena iyo dhiicankeenna tiftif u siinaa dadka muqdishoga walaalayaal kulligeen waan wada tiiraayoonayna kulligeen walaalaheen muqdisho ku sugan waxaan leenahay tiiraanyada waa idinla qabnaa mushkiladda waa idinla qabnaa barbaleynka waa idinla qabnaa qof walbaahi oo Soomaaliya maanta runtii caloosha ayuu ka ooyaya maanta qofka kan qalbiga adag xataa waa ooyaya kan weligiis aan la arkin inuu ooyi jira xataa maanta waa ooyaya oo wuxuu ooyaya markii uu arko marxaladda iyo dhibaatada dalka jirta miyaad qiimeyn kartaa inaad u timi mayd aan maydka oran karin qof markuu isku dhayna baa la yidhahdaa waa mayd raggiiyo dumarkiiba hilbahoodii la kala saari waayey ismarkaan qalbiga ku ooyayna maanta waxaan isku sababnay inaan caawino waalideen inaan garab istaagno inaynu waxaynu awoodno ku tagno intii doonta haatee waxaynu ka codsanayaa inaan qofnoo kala bakaynin waxa weeye halka doolar iyo $25 dada waxay talaysaa dhexda aynu tirano waxba ohi noo tarmayso magaaladeenaan galno qof kasta wuxuu awoodaan ka soo qaadna walaalayaal aan caawinna miyaan daba lahayn dalkayga miyaan dhex joogin noocay ayaan aniga baladayda miyaanu Soomaali ahayn maxaan ku dhintay maanta yaa ii sheegi kara maxaan ku dhintay waa roo qadar maxaan ku dhintay dadka eegu soo dira waxbaa aniga ii dheer oo maxaa ii dheer waayo sawdar ayaan ku dhintay wadaniyad baan jirin cadifad baan jirin wadaninimo adduunka dadku wuu hormaraa waxbaa la isku dhaafaa dhaqaale iyo horumar iyo wax kale intaan la gaarin waxaa jira horumarka adduunka ugu weyn oo ah wadaninimo dadka runtii qalbiga ka kacsan dadka mushkiladdu ay asiibtay dadka barabaleenku uu haysto ee ku sugan muqdisho markay arkaan annagoo la ooynayna waxay dareemayaan inay walaala leeyihiin laakiin haddii annagoo quslayna aynu kaamirada ka muuqanno waxaan u egnaa dad ku faraxsan wixii magaalada muqdisho ka dhacay qof walbaahi maanta inuu tiiraanyoodo xaq buu leeyahay inuu wax qabtana xaq buu leeyahay inuu qiiroodo oo uu soomaalinimo muujiyana xaq ayuu u leeyahay midnimo ayaa inoo badana hooyada aan maanta wax rajaclahayn ee maalkii ka gubtay ee awlaadii ka dhimatay yaa walaal qofkii naga ka mid ah u noqonaya awlaad yaa u noqonaya awlaad dalkeeda waxay intaa ugu soo tumraysay ee ilaa qofki ilaa hadda u taagnay waa in iyada lagu jirtaaba ma inay marna dhasho marna dhiiggeeda la daadiyo markay 20 jir dhasho oo yaa intaasoo soddon sannadood ka badan si ciyaar marka soo nooleen awlaaddeeda markii la baxsatay ee si dawladda ku dhalatay idinla cusub ay u tilaabatay bay waxay u timid dhabarkeedii oo qoonta laga gooyey bay waxay u timid soolkii maayo tusatay wishbuuna gogaan xataa aysan midabkooda garanaynin waayo waxaan leeyahay midkii lagu dhacayo qiil looma hayo maxaan ku dhigay qiil looma hayo dadkana baabiinaya waxaan ka codsanayna baryay taaganta waa inay baryayna waa la daayo innaga waxaan nahay dad badqaba oo nabad haysta laakiin wallaahi waa ognahay qalbiyadeena dhaacay naqlada gaaray waa ognahay haddaynu oyno iyo haddaynu gabanno iyo haddaynu garaarno inaynan dhulka tirikan daranka xamra ka dhacay ilaa ayaa dadka ilbooda soo furaya maxay mutaysteen shaqo soo doontay xaaskiisii reerkiisii awlaadkiisii u ka tegay waxbarasho soo doontay waayo maxaa la maarsanayaa miyuusan dhaqan ahayn dalkiisa miyuu dhex joogin miyuusan Soomaali ahayn miyuusan habka Soomaali badan miyuusan ku noolay caasimada Soomaaliya waayo miyuusan Soomaali ahayn bagaal baa lala dagaalamaya
خلاص